injiilka sida Marcos u qoray cutubka 11 goortay Yerusalem ku soo dhawaadeen halka Baytfage iyo Baytaniya xaggii buur Saytuun heertiisii ayuu laba ka diray wuxuuna ku yidhi tuulada idinka soo horjeeda taga oo kolkiiba markaad gashaan waxaad ka helaysaan qayl xidhan oo aan nina weligii fuulin soo fura oo keena haddii nin idinku yidhaahdo maxaad waxaan u samaynaysaan waxaad ku tidhaahdaan sayidkaa u baahan oo kolkiiba uu u soo diri doonaa halkan markaasay tageen oo heleen qayl ku xidhan irid agteed meel dibadda oo jidka dhexdiisa wayna soo fureen kuwa halkaa taagnaa qaarkood waxay ku yidhaahdeen maxaad samaynaysaan oo u furaysaan qaylka kolkaasay waxay ku yidhaahdeen sida ciise ku amray markaasay oggolaadeen waxay qaylkii u keeneen ciise dharkoodana ayay dusha ka saareen wuuna ku fadhiistay dad badan baa dharkoodii jidka ku goglay kuwo kalena laamo ayay beeraha ka soo jareen oo jidka ku gogleen kuwii hor socday iyo kuwii daba socdayba way qayliyeen oo yidhaahdeen hoosaana waxaa barakadaysan kan rabbiga magaciisa ku imanaya waxaa barakadaysan boqortooyada imaanaysa ee aabbaheen daa'uud hoosaana ku jirto meelaha ugu sarreeya markaasaa ciise yeruusaalem oo galay macbudka goortuu hareeraha iyo wax walba eegay oo gabalkiina dhacay ayuu Baytaniya 12 ula baxay maalintii dambe markay Baytaniya ka yimaadeen wuu gaajaysnaa meel fog wuxuu ka arkay geed berde ah oo caleen leh wuu yimid inuu haddana wax ka helo goortuu u yimi waxba kama uu helin caleemo keliya maahe waayo wakhtigii berdaha ma ahayn ciise baa u jawaabay oo geedkii ku yidhi hadda dabadeed weligaa ninna iyo midho kaa cunin xertiisiina waa maqashay waxay yimaadeen Yerusalem ciisena macbudka ayuu galay oo bilaabay inuu ka eriyo kuwii macbudka wax ku iibinayay iyo kuwii wax ka iibsanayay wuxuuna rogay miisaskii kuwii lacagta bedbedelanayay iyo kursiyadii kuwii qoolleeyaha iibinayay umana oggolayn in nina albaabka macbudka la soo dhex maro markaasuu wax baray oo ku yidhi miyaanay qornayn gurigayga waxaa quruumaha oo dhan loogu yeedhi doonaa guriga tukashada idinkuse waxaad ka dhigteen god tuugo markii wadaadadii sareeyo culimmadii maqleen waxay doonayeen si ay u dilaan waayo way ka baqeen maxaa yeelay dadka oo dhan waxay ka yaabeen waxbariddiisa mar alla markii qorraxdu dhacday ayay magaalada ka baxeen subaxdii goortay ag marayeen waxay arkeen geedkii bardaha ahaa oo xididada ka engegay markaasaa Butros soo xasuustay oo wuxuu ku yidhi macallinkaygiiyow eeg geedkii bardaha ahaa oo aad habaartay waa engegay ciise baa u jawaabay oo ku yidhi ilaah rumaysta runtii waxaan idinku leeyahay ku alla kii buurtan ku yidhaahda ruq baddana isku tuur oo aan qalbigiisa ka shakin laakiin rumaysta in wuxuu yidhi ay noqonayso waa u ahaan doontaa sidaa darteed waxaan idinku leeyahay wax kasta oo aad tukasho ku baridaan rumaysta inaad hesheen oo way idiin ahaan doontaa oo kolkaad tukasho u taagantihiin cafiya haddii aad dad wax ku leedihiin si aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idinka cafiyo haddii aanad cafiyin aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idiin cafiyi maayo mar kale ayay Yerusalem yimaadeen oo goortuu macbudkii dhex marayay wuxuu u yimid wadaadadii sare iyo culimmadii iyo waayeelladii markaasay waxay ku yidhaahdeen amarkee baad wax ku samaynaysaa yaa amarkan ku siiyey inaad waxaan samayso ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi aniguna hal baan idin weydiinayaa ii jawaaba waanan idiin sheegi doonaa amarka aan waxaan ku samaynayo baabtiiskii Yooxana ma wuxuu ka yimid xagga jannada mise dadka ii jawaaba dhexdooda ayay
iskala hadleen iyagoo leh maxaynu nidhaahnaa haddaynu nidhaahno xagga jannada wuxuu inagu odhanayaa haddaba maxaad u rumaysan weydeen laakiin haddii aynu nidhaahno xagga dadka ayuu ka yimid dadkay ka baqeen waayo kulli waxay u haysteen yooxana inuu nebi yahay markaasay ciise u jawaabeen oo ku yidhaahdeen garan mayno ciisena wuxuu ku yidhi aniguna idiin sheegi maayo amarka aan waxan ku sameeyo